runtii wanaagsan khiyaanay meel kasta oo dunida ka joogtaan waxaa soo gabagaboobay doodii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee soomaaliya ay codsatay waddamadii kasoo qayb galay oo dhanna kulligood waxa ay la safteen si bareera oo cad dowladda dhexe ee soomaaliya haddaba waxaanu barnaamijkan ku eegi doonaa sida doodaasu ay u dhacday waxa uu yidhi ambasadoorka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ambasador abuukar baale iyo weliba dowladda dalka ingiriiska oo iyaduna si adag oga hadashay midnimada iyo wadajirka soomaaliya isla mar ahaantaasna sheegtay inaysan somalilan gool istaageeda ictiraafsanayn dowladda dalka maraykanka ayaa ka hadashay oo aad iyo aad isha loogu hayay maxay tiri dowladda dalka maraykanka arrimahaas iyo kuwo kale ayaanu barnaamijkan ku qaadaa dhigi doonaa waxaadna ka daawan doontaan somali coverage television haddii laha yidhaahdo oo saare cabdi axmed ay markaas noo samaysay wararkii ugu dambeeyey iyo falanqayno aan meel kale laga helin ayaadna ugu tegi doontaan sahro oo maraykanka joogta ayaa arrintan la socotay sahro soo dhowow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixaafid saad sheegtayba shirkii ka dhacay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay ee shirka gaarka ee degdega ee arrimaha soomaaliya ee ka yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sida adigaba aad sheegtay dalalkii dhammaantoodba kasoo qayb galay waxa ay si weyn oo ka leexleexasho lahayn ay sheegeen inay u taageersan yihiin madax bannaanida qarannimada iyo sidoo kaleeto dowladnimada soomaaliya isla markaasina ay ka soo horjeedaan tallaabadii ugu dambeysay israel ay sheegtay inay dowlad ugu aqoonsan tahay somalilan waxaa xusid mudan sida adiguba aad sheegtay dalal waaweyn oo ay ka mid yihiin maraykanka shiinaha UK denmark hadday noqoto ruushka faransiiska jabuuti panama republic of korea iyo sidoo kaleeto dalka bakistan iyo waddamo kaleeto fara badan xataa griega uu ka mid ahaa ayaa dhammaantoodba waxa ay sheegeen inay isberber taagayaan soomaaliya waqtigan islamarkaasina ay kasoo horjeedaan in la kala gooyo waddanka ayagoo dhinaca kaleetana sheegay inay muhiim tahay in soomaaliya gudaheeda ay xalliso xaaladaha u baahan iyo wadahadallada inay kala yeelato somalilan waxyaabaha jira safiirkii waxaa joogay gudahan usii geli doonaa arrintaasi israel halkaasi asna oo mowqifkooda ka hadlay iyo waxa ku kalifay arrintan iyo sidoo kaleeto dalalka oo dhammaantoodba aragtidooda si waafiya uga hadlay waayahay sahro haddii aynu eegno aynu ka bilownaa safiirka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey abuukar baale nin rugcadaa siyaasi iyo muddo dheer ku jiray diblomaasiyadda kasoo shaqaynaya weeye hadda ka hor doodo fara badan oo yimid ayay soomaalidu aad iyo aad ugu riyaaqday sidii doodii badda oo kale hadday halahay tii etoobiya iyo tii ka horreysay kenyaba waxaa muuqata in uu dowladda dhexe soomaaliya oo isku duuban oo ambasadorku dabcan hogaaminayo marka qaramada midoobey la joogo in ay ku guulaysteen in ay markaa waddamadii yimid oo dhan ay fikirkoodii ay ka gadaan arrintaasu fartiin intee la eg ayay u diraysaa muqdisho iyo weliba tel aviv xaqiiqatan arrintan waxay ahayd arrin labadii cishe ugu dambeysay si weyn soomaaliya ay usoo karkarinaysay oo ay u waday si hoose xataa iyadoo la kaashanaysa waddamada kaleeto ee ayada la ah ologa ama saaxiibka sida waddanka turkiga oo maanta xataa aragtidiisa aad arkaysa si weyn si ay uga hadleen arrintan marka saad sheegtayna safiirka qaramada midoobey u jooga soomaaliya ambasador abuukar daahir cusmaan abuukar baale oo ah nin muddo kusoo jira howlahan yaqaanana ayaa waxa uu ku bilaabay oo uu ka hadlay inuu gado siyaasadda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo aragtida ay ka qabaan israel aqoonsiga ay aqoonsatay dhinaca somalilan waxa uuna ku bilaabay tani inay tahay mid si weyn uga hor imaanaysa qawaaniinta caalamiga ah iyo xeerarka ka yaala dalalka iyo arrimaha xuduudaha caalamiga ah ee ku salaysan in waddan kale intuu kusoo xadgudbo uu baabi'inayo madax bannaanidiisa iyo qarannimadiisa ambasador abuukar baale ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya ay si weyn uga xumaatay islamarkaasina madaxda caalamka ay ka doonayaan inay arrintan diblomaasiyan ku barbar istaagaan waxa uu ka hadlay sida arrintan ay dhaawac ugu tahay ayuu yiri xataa ammaanka guud ahaanba gobolka gaar ahaan bariga afrika waxa uu sheegay in dhinaca kaleeto ay tahay arrintan israel
miday uga cararayso inay kusoo rarto dad bariga afrika gaar ahaan soomaaliya dad falastiiniyiina oo guryahoodii laga soo barakicinayo taasi oo uu sheega xataa ayada laftirkeeda inay xadgudub ku tahay qawaaniinta caalamiga iyo xeerarka caalamiga in dad laga soo barakiciyo sida uu yiri guryahoodii ay deganaayeen oo la keeno waddan kaleeto marka waxa uu sheegay inay dhibaatooyin amni darro keenayso mid dhaqaale keenayso mid ku xadgudub wadamana ay keenayso oo waddanka soomaaliya ay tani dhibaato ku tahay marka wadamadii wada dhegaysteen khudbadda soomaaliya ayaa dhinaca kaleeto dalalkii mid mid anagoo u kor istaagi doono ay uga hadleen sida wadamada caddeeyay mowqifkooda safka hore waxaa ka mid ahaa UK oo kaleeto maraykanka oo muddaba laga dhursugayay somaliland xataa ay hadal hayeen oo ay dhaheen waxay ku xigsan doonaan israa'iil waxaa kaloo xusud mudan turkiga shiinaha ruushka faransiiska dhammaantoodba dalalka halkaasi ka hadlay ayaa si weyn maaragtay arrintan uga hadlay waayahay haddii aynu eegno taageeradan dowladda soomaaliya ee heshay iyo ambasador abukar baalle siduu safiirka israa'iil oo meesha fadhiyey uu ku yiri idinka oo gaza ka geystay waxa aad aragteen iyo dhibaatada iyo tacadiyadda caalamkuna uu markhaatiga ka yahay annaga inaad farta nagu soo fiiqdaan oo aad tidhaahdaan dowladda dhexe soomaaliya xasuuq ka geysatay somaliland arrintaa muxuu ka yiri markii ugu dambeysay saad ula socotayba ayaa khudbaddii markii uu maaragtay la siiyey waqtigiisa safiirka u jooga israa'iil qaramada midoobay ayaa hadalkan oo ka daba tuur ah markuu arkay dalalkii oo dhan in soomaaliya ay difaaceen oo ay barbar istaageen ayaa waxa uu yiri waxaan ugu kalifa waxaa qayb ka ah in israa'iil ay maaragtay u aqoonsatay somaliland waddan xasuuq loo geystay markaasi dhinacaas waxa uu dabcan ula jeeday annaga xataa waana la xasuuqay oo sympathy noocaas ayuu eegayay marka waxaa kaleeto uu sheegay in dowladdii hore soomaaliya ee xadgudub iyo xasuuq u geysato somaliland waddan la dhibaateeyey uu yahay bannaanna uu taagan yahay saasna ay ku taageereen doorashooyinkooda qabsadeen amni uu yahay marka abukar baalle ambasador abukar baalle ayaa soo hadlay isna oo yiri ma adinkaaba xasuuq ka hadli kartaan adinkoo dunida oo dhan wixii aad samayseen si weyn loo xasuusto oo weli ay qoyan tahay tacdiyada aad ka geysateen falastiin marka waxay ahayd arrin si degdega labadooda ay isugu jawaabeen si toosa iyadoo golaha la fadhiyo marka aad eegtid caalamka oo muuqaalkan daawanayay abukar baallena uu leeyahay annaga farha nagu soo fiiqinina waxaad qaza ka geysateen caalamku wuu ogyahay raadkaasna saa sheegtay weli uu qoyan yahay fariinta abukar baalle oo caalamka u dirayo iyo dadka hareerihiisa fadhiya ee golaha ammaanka kasoo qayb galay waa fartiin noocee ah dabcan waxa uu gadayaa in marmarsiyada israa'iil aysan ahayn wax sal iyo raad leh haddii xasuuq ay ka hadlaysana tii ugu dambeysay oo 100 dal in ka badan ay maaragtay dhinaca kaleeto israa'iil uga soo horjeesteen ay tahay inay qiimeyso waxaa kaloo xusid mudan israa'iil arrintan keli inay ku noqotay wadamadii kasoo qayb galay shirkaasi degdega ah maanta isniina dhacayna ay wada muujiyeen taageerada ay soomaaliya u hayaan wadamada qaarkood xataa lama aysa gabanin oo waxay leeyihiin soomaaliya gudaheeda waa inay wada hadal samaysaa sida hadda UK oo kaleeto safiirka u jooga qaramada midoobey waxa uu sheegay in soomaaliya ay muhiim tahay arrinta taagan ee muddada dheer is afgaran waaga ergaas u isticmaalay ah dhexdooda in ay ayaga iska fahmaan oo ay ka wada hadlaan oo ay dhameeyaan halka dhinaca kaleetana uu sheegay tan inay ka hor imaanayso mabaadida caalamiga ah ee ka yaala wadamada madax banaanidooda iyo inaan la taaban karin xuduudahooda la faragelin karin la iskuna xadgudbi karin isla markaasina ay soomaaliya si rasmiyatan ugu barbartaagan yihiin waayahay waxaan rabaa daawadayaasha in aan soo dhoweeyo xanaan xasuusina isla mar ahaantaas daawadayaal Somali Coverage Television wararkii ugu dambeeyey iyo barnaamijyada ugu xiisaha badan iyo waraysiyo gaar ah ayaad saacad walba ka helaysaan si joogto ana waa loo update garayaa si aad ugu update noqotid saan iyo golo wadaad raali ka tahay waxyar adiga daawadayaasha aan dhageysana UK waxay arrintan ka tiri. Thank you. First, the United Kingdom reaffirms its support for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia. The UK does not recognise Somaliland's independence. We maintain that any change to Somaliland's status depends on mutual agreement
between Mogadishu and Hargeisa through dialogue and must conform to the purposes and principles of the UN Charter. waxa uu leeyahay mar kale waxaan ku celinaynaa oon xaqiijinaynaa in United Kingdom ama Britain ay mar kastaba ay xaqiijinayso in aan lagu xadgudbin madax bannaanida qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliya isla markaasina ay markaasi u aqoonsaneen Somaliland inay tahay waddanka madax bannaan Soomaaliya annagoo ilaalinayna ayuu leeyahay midnimada Soomaaliya waa in labada dhinac ay wada xaajood ku dhameeyaan arrintooda si markaasi looga hortago cawaaqibka imaan kara arrinkan arrintaas Hargeysa caawise oo akhrinaysa sidaad la socotidba Somaliland wadamada ay had iyo goor sheegtay inay saaxiibka dhow yihiin ama olaga waxaa ka mid ah Britain oo dalalkii gumaysta si gaara Soomaaliya dhinacaasi ka mid ah Hargeysa maxaan ku raahdaa Britain ay tahay marka arrinkan dhinac markii laga fiiriyo aqoonsigii muddada dheer ee Somaliland raadinaysay oo wadamada ay la kaashanayso ay mar walba sheegi jirtay in UK ay ka mid tahay tani waxay noqonaysaa mid dhinac kaleeto baalmarsan hadalka ka soo yeeray safiirka u jooga qaramada midoobay UK oo si cad u sheegay in Soomaaliya ay ku barbartaagan yihiin in ay danaheeda madax bannaani midnimo dowladnimo iyo siyaasadeedaba ay ka shaqeyso oo ay ku barbartaagan yihiin wixii Israel talaabada ay qaadana aysan ahayn midaan habboonayn waayahay haddii aynu eegno hadday waxaa soo hadal qaaday wadamo waaweyn oo Ruushka Shiinaha iyo weliba ay ka mid yihiin dowladda Faransiiska saddexduba codka qayaxan ayay halkan ku leeyihiin Ingiriiska iyo Mareykanka shantoodaas weeye Mareykanka waa soo soconaa Ingiriiska Shiinaha Faransiiska iyo weliba Ruushka waxaa muuqata afartooduba inay isku dhinac yihiin dhinaca dowladda dhexe Soomaaliya ay kulligood wada xigaan fariintaas ay dirayaan wadamadaas culays kale haddana codka qayaxan leh maxaa lagu fasiri karaa isleedahay ama Israa'iil aragti noocee ayay ka qaadan kartaa isleedahay markaanu eegno wararka u dambeeyay waxaa muuqata in Soomaaliya ay ciyaartay ciyaar fiican oo diblomaasiyadeed marka la fiiriyo sida ay u soo dumatay ama ay xataa ula hadashay ama ay xataa fikirkeeda uga dhaadhacsiisay sida arrintan ay uga soo horjeedo wadamadan dabcan cabdixaafid oo saad ogtahayna qaramada midoobay shirka golaha guud marka laga hadlayo ama shirarka kalete kan hadeero kaleto golaha amniga qaranka looga hadlay aan iraahda looga hadlayo Security Councilka waxay had iyo goor soo qaataan ama ay ka hadlaan inay muhiim tahay ilaalinta madax bannaanida wadamada inaan lagu xadgudbin marka tani waxay u ogolaanaysaa Soomaaliya inay qaaday dhabo wanaagsan oo diblomaasiyadeed oo ugu hortagayso arrinta Israel ee ku aqoonsatay Somaliland waxaa muuqato in saad sheegtaba dalalkan veto power kale ee awoodda qayaxan leh ee haddii mid ka mid ah wax uu diido ee inta kale waxba qaban karin in Soomaaliya intooda badan ama dhammaantoodba isku raaceen inay ku barbartaagan yihiin arrintan marka waxaa muuqato in Soomaaliya ajandaheeda siyaasadeed ay ka gaday caalamka marka tani ay tahay haddii hadhowda xataa tallaabo ay qaadayso Soomaaliya inay u heli karto taageero buuxdo wadamo ayaa Soomaaliya heshiis la sida dalka Turkiga oo kaleeto oo saaxiib dhowna ay yihiin hadhowda haddii ay qaadayaan xataa tallaabooyin ama military ama ciidamo inay geeyaan meelaha hadda laga cabsida qabo ama waxyaabo kaleeto ay soo rogaan tani waxay ka dhigaysaa arrin mabda'iyan rasmi ah oo Soomaaliya ay u haysato ogolaanshiyo iyo xulifo iyo saaxiibadeeda dhan inay ka gaday in waddanka Soomaaliya ay Soomaaliya masuul ka tahay oo aanan lagu xadgudbi karin qarannimadeeda siyaasad ahaanteeda iyo dowladnimadeeda intaba